بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعنا وناكسن داوديال كسو dhawaada warka telefishinka caalamiga CWTV oo in kaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Tanacaabud warka waxaan la socodsiin doonaa anigoo nashaada qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Goodax Barre oo walaac ka muujiyay faafinta caabuqa coronavirus caabud oo kabaradii hore lagu iibin jiray qaadka hadda lagu iibiyo qudaar ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda oo isgarabsanayo howlgalo ka sameeyay deegaan hoostaga Jamaame qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maamulka magaalada Mandheera oo xiray isku socodka magaalada Mandheera qodobada dibaddana waxaad ku maqli doontaan dawladda Botswana oo karantiisha xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garoobo warkiyo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabno warkiyo faahfaahsan kabaradii hore lagu gadi jiray qaadka oo hadda lagu iibiyo qudaar waxa warbixintaasi inoo faahfaahin doona wariyaheena Mawlid Galwaaq waxaan maanta ku hayaa daawada sheeko ka bedelan halka aan ku suganahay waa mid kamid ah waa qaar kamid ah kabarada ugu caansan ee ay dadku ka adeegan jireen waa dadka qaadka doonayay laakiin maanta waxaan ku hayaa sheeko taasi ka bedelan oo ah in kabaradii hore loogu gadi jiray qaadka kadib markii ay dawladdu joojisay in maanta lagu gadayo qudaar waxaan kala sheekaysanayaa bal sida ay qudaartaasi u gadayaan iyo fikradan cusub ee ganacsi ay bilaabeen haweenka halkan ku gadi jiray qaadka waa kuwan qaar kamid ah haweenka oo iiga sheekaynayo sida ay fikradan u abuureen iyo sida hadda ganacsigoodu yahay maadaama dadka qaarkood ay ku sheekeeyaan in ay ka ganacsadaan qaadka oo ay caruur ka biishaan hadaba sidee bay ku suurtagali kartaa in fikrada ganacsi oo kale la abuuro waa kuwan haweenkan iiga sheekaynayo arrimahaas alaykum waraxmatullaahi wa barakaatu annagoo ah dadkii ka soo shaqayn jiray qaadka oo ku soo ilmo korsaday oo inta ka soo shaqaynayay haddana la ka joojiyay oo naga joojiyay madaxweynaha yaga iyo salwasaaraha yaga khayr Allah siiyo iyo dawladda Soomaaliya oo taab kale waanu mahad celinaynaa mar faramarnin oo maanta waxaan gadaynaa mooski baan gadayaa caanihi baan gadayaa qarihi baan gadayaa dhil fuudka carruurta waa la soo bixi karaa markasta waa la soo bixi karaa qaadkii hore oo Kenya oo nala ka joojiyay waa midkii hore noo habsaamiyay waa midkii ragada ku sifooray waa midkii dhalinyarada ku sifooray waa midkii la lumiyay anagoo dhan baan ku lunay suuxayno ma dhacayno waa ku taageersanahay dawladdu inay naga joojiso qaadka Ethiopia iyo Kenya inta in laga joojiyo ayadoo anaga caafimaadkeega iyo naftayada qarahaasaan gadanaya ma sha Allah waa laga gataa anna dheelfuudka waa kala soo baxi karaa waana kala soo baxaa dadku markay xoolahooda beerta iyo beer leeyihiin ha aamineen oo beerta u sareysay oo ay haystaan macbiishayda qaadka iga gadan jirtay waxaan leeyahay aniga qaadka in badan baan ka soo shaqeeyay ilmaan ku soo korsaday waxbaan ka soo tabcaday haddana waan ka tanasulay waxaan gadayaa qaraha sidaad aragtaan ama mooska ama qudaarta kale oo dalagga ah marka waxaan ku bogaadinayaa bulshada kale inay iska daayaan waxa dhibaatadu nooga imaanaysa ama degmadanada ama dadkanada ama deegaankanaga sida Soomaaliyeed waxaan gadi jiray oo ka shaqayn jiray oo professional ah qaadkina maanta waa ka kaaftay marta shakhsiyeed meelahay waxaan gadaa qudaarta caanaha sida shaaha kafayga leh shaaha cadayska caanaha geela waxaan gadaa kiyaan qaadka ku gaday baan intaba ku gadaa booski aan ku gadayna waa ku gadaa aan fayriska imanin oo kaliyaha iyo caafimaadka iyo cunnada intaba u fiican baan gadaa kale waxaan kala sheekaystay mid kamid ah dadka halkan ka adeegan jiray oo qaadka ka gadi jiray oo asna ii sharaxayo waxa uu hadda halkan ka gadanayo iyo waxa uu horay uga gadan jiray halkan maanta waa u jeedaanoo de qaran ka wataa awal maxaa ka wadan jiray awal de la urbeesoodii waxaan duugan jiray sax aqaar dheerbeer baa leeylaabi jiray sax de hadda ma garanaysaa kulay waa farxad isbedeshay wallahi dhiigga wuu kordhiyaa sidoo kale hadii la ku idmaayo xataa kaliyaha nadiif buu siinayaa
waxyaalo badan baa laga faa'iiday mar walba noogu bedel gabdhaha waxaan ka codsanayaa haddii garanaysaa mar walba in sidii magaranaysaa dadka anfacaysa ay ku dhaqaaqaan oo sida qudaartoo kale iyo magaranaysaa ay waxyaalahaas ay keenaan mooska iyo qaraha iyo qudaarta kale oo macaan oo waddankeena ka baxaan ka qaadanaya maanta halkaan صح markii hore waxyaabihii aad ka gadan jirtay oo qaadka ahaa lacagta laga siin jiray lacagta mooska laga siinay iyo borotiinka iyo waxyaabaha ku jira lacagta qaadka laga siin jiray aad bay u fara badnayd laakiin lacagta hadda mooska aan ku qaato iyo qaraha iyo ma garanaysaa waa raqiis ayagaana borotiin badan ayagaana fiican isku mana dhawa noloshuna hadeer iyo waagan qaadka cuni jiray hadeer bay macnaha ii macaan tahay qof hadda waxaan maadaama aan da' weynahay kor hadda soo korayo nolosha soo qaatay xibkiisa la koobsaday صح ما شاء الله marka waxaan rabaa dhalinyarada hadda yar soo koraysa iyo dadka hadda qaadka ku mashquulsan inay qudaartooda ay cunaan oo mooska cunaan oo maxaan ku yiraahdaa cambaha cunaan oo iibiyaan gabdhuhuna waxaan leenahay qaadka inay noogu bedelaan qudaarta mawlid jaamac farax mawlid galwa warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Goodax Barre oo walaac ka muujiyay faafinta caabuqa coronavirus sidoo warbixintaasi noogu qaadaa dhigay wariyaheena Nasteex Faarax Shidane wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa shaaciyay in haddii cudurkani uu dalka ku faafo aysan jirin awood looga hortagi karo balse ay habboon tahay in marka hore bulshada ay la timaado alabari wasiirka ayaa xusay in aad uga walacsan yahay tirada iyo tuunka sii badanaya cudurka safmarka ay dhibaatada ba'an ku haya bulshada caalamka isagoo inta raaciyay in dadka Soomaaliyeed aysan balse dadku badankood ay yareysanayaan qafilan karo maanta maalin aan uga baahi badanahay ma jirto in midowno ismaqalno iskaalmayno isla markaana meel uga soo wada jeesano sidii aan uga hortagi lahayn cudurkani si uusan saameyn ballaaran ugu yeelan dalkeena maadaama tabar dhaqaatiir qalab iyo goobo caafimaad oo aad ugu habboon aanan haysan ayuu yiri wasiirka waxbarashada federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre Nasteex Farxaan Shidane CWTV magaalada Cabudwaaq ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya howlgal ka sameeyay deegaano hoostaga Jamaame sida warbixintaas noogu eegay wariyaheena Cabdiwaaxid Washington ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab oo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose taliyaha ururka shanaad ee kumaandooska Danab Gaashaanle Xasan Ciraaqi ayaa sheegay in howlgalka ay kula wareegeen deegaanada Kooban Araare iyo Bangeeni oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab sida kale waxa uu sheegay in howlgallada ay barbar socdeen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay si wada jir ah u fulinayeen ciidamada Mareykanka ee Africom iyo kuwa xooga dalka taas oo uu sheegay in lagu dilay 12 xubnood sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii taliyaha ururka shanaad ee kumaandoosta Danab Gaashaanle Xasan Ciraaqi waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ciidanka dawladda kula wareegayaan degmada Jamaame oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab howlgalkan ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli saacadihii la soo dhaafay ee dagaalo ka dhaceen deegaanka Baarsanguuni ee gobolkaasi Jubbada Hoose Cabdiwaaxid Burhaan Cabdiwaaxid Washington CWTV Cabudwaaq maamulka degmada Mandheera oo xayiray isku socodka magaalada Mandheera sidoo warbixintaasi mar kale noogu eegay wariyaheena Mawlid Galwaaq maamulka magaalada Mandheera ayaa bulshada magaalada ku soo rogay bandow ah in aysan dhaqdhaqaaq sameyn karin marka laga yimaado waxyaabaha miciishada iyo waxyaabaha kale oo adeegyada bulshada loo sameeyo maamulka Mandheera oo sheegay in cudurka coronavirus ay iska faafiyaan dadku waxayna amreen in iskoolada iyo isku socodka dhammaan dadka iyo gaadiidka ay hakiyeen ay ka baxayso meesha cabsida laga qabo cudurka coronavirus waxa kale oo ay sheegeen in maamulku uu sidii ay u qaateen xorriyadii 50 sano ka hor aysan arag wax caafimaad oo dadaal ah oo ay dawladda dhexe soo gaarsiisay waa dawladda Kenya maamulku waxa uu kale oo sheegay in aan la furin masaajida iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto waxayna gabagabadii hadalkooda ku soo gabagabeeyeen in gabi ahaanba la saaray magaalada Mandheera bandow oo la xanibay dhaqdhaqaaqi
shicibka ka codsado aan ku sii dhiirigeliyo ku adkeeya zaid inay ogaadaan arrintan gurmad bay u baahan tahay gurmadkana waa idinka shicibka gurmadka leedinka rabana gurmad moogtahay arrintan coronavirus adduunka oo dhan waxay ku magacaabeen inay tahay colna gurmad buu ku shaqeeyaa gurmadka hadda madfac iyo balaayo kale leedinkama rabo gurmadka leedinka rabo waa inaad gurigiina ku ekaataan aad ku dadaashaan inaad guri ka soo bixin socodka la yaraysto taxadarka la samaysto idinkoo og tabaryarida dowlad goboleedka countiga Mandera ama countiyaashani kale sida Wajir iyo Gares tabaryarida dhinaca caafimaadka aan ku leenahay iyo moogta caawimaad xumida dhinaca dowladda dhexe ka imaanayso oo aad u yar aanan ku eedeynin maadaama wadamo kale horumarsan sida Mareykanka ay moogta tabaryari ay sheeganayaan kuma eedeynayno dowladda dhexe caawimaad yarida ka imaanayso yani nagama aha eed waxay naga tahay tabarta dowladda dhexe intay tahay uma wax ku qabanaysaa tabartana way yar tahay aad iyo aad taanana way yar tahay inta tabarta anaga laakiin waxba ma reebanayno dadaal badan baan sameynay hospitaalka diyaarintiisii shaqo badan baan gelinay waxyaabaha naga maqan sariiraha iyo ventilators concentrators PPEs N95 mask waxaasoo dhan dadaal baan gelinay inta ilaahay uu awood nagu siiyo aan ku dadaali karno waxba uma reebanayno inta mas-uuliyiinta reer Mandera County u shaqayso dhanna way joogaan magaaladay joogaan way shaqayna ku jiraan waxayna ku kala maqan yihiin Lafe Ramo Banisa Takawa Elwa Kutulo iyo inta ku harsan magaalada Mandera waxaan rabnaa inaad ogaataan maadaama aan dadaalayno dadaalka caawimaad buu u baahan yahay caawimaadkana idinkaa leedinka rabaa caawimaadka ugu weyn ood samayn kartaan waa inaad isku dhiirigelisaan dhibka siduu yahay taxadarka la samayn lahaa oon ka hadalnay taabashada wejiga sanka isha gacmaha saabuun si fiican loogu dhiqanayo ilaa 20 second oo la dhiqanayo haddii biyo aad ka fog tahayna arrinta sanitizers oo gacmaha lagu tirtirayo in la sameeyo kala fogaashada la sameynayo annaga isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed siday tahay waad ogtihiin isdhexgalkaas waxaan leenahay haddadan muddo gaaban yaraysta isdhexgalka yaraysta kala fogaada ugu yaraan mitir iyo bar baa loo baahan yahay inaad kala fogaataan shicibka intaasan rabaa inaan ku dhiirigeliyo waana amar bixinay in socdaalka la xiro baabuurta dadka transport bixiyaan basaska iyo homeyda iyo matatuyaasha iyo baabuurta yaryarbo ka imaanaya qaybaha kale countiga in la istaajiyo baabuurtaas oo ka imaanaya qaybaha kale isdhexgalka tuulooyinka iyo subcountiyaasha iyo wardyaashaba waan xirnay wixii ka bilowda maanta bulshadan waxaan rabnaa inaan ka codsano tafadal inta dhibkan aan si fiican kahortagiisii aan meel qabsanin waxaan rabnaa inaan ka codsano in socodkaas iyo dhiirigelinta iyo amarka la bixiba aad u dalqaadataan aad moogtahay aad u aragtaan arrin loogu talagalay mustaqbalka noloshiinii aan ugu talagalnay aysan ahayn cunaqabateyn shicibka la saaray waadna arkaysaan wixii ka socda meel walbo waxaan rabnaa inaan ka codsano insha allah inaad waana qaadataan shicib ahaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa jirto dadka informationka dadka cudurkan COVID-19 laga helay soo gudbiya cabashay qabaan arrintaas ayada baraha bulshada kolley waa laga arkay arrintaas maxaad ka dhihilayd ka gaafan ahaan waana ka hadalnay arrinta waxaan rabnaa horta shicibka inay ogaataan anaga Soomaalida khaasatan kuwan reer Mandera oo mas-uulka ah haddaan ka hadlo waxay kulli qof walba wuxuu noqday qof wariye ah meeshuu joogu wariye ku noqday wuxuuna jecel yahay wargudbis inuu galo waxaan rabnaa inaad ogaataan wararka mar hore aad isu dhiibi jirteen sida caayda dowladda iyo xanta mas-uuliyiinta iyo arrimo noocaas hadda tan way ka duwanta waxaan idinka codsanaynaa inaad ogaataan arrinta haddana soo saamaysay waa arrin aada u culus waa arrin la rabo in loo dhaafo dadka mas-uuliyadda ka hortaga arrintan la siiyey oo caafimaadka iyo dowladda countiga inaad u dhaaftaan warbixinta la bixinayo ka qusayso COVID-19 waxaan helaa meesaje ka qusayso
in meeshan intaasoo qof oon ogahay baa joogo covid-19 qaba adiga maad cabirin sidaad ku ogaanaysaa haddii information aad bixinayso waxaa la rabaa inaad dhahdid qof xanuunsan oo maybe temperature kor ay jirto oo kufacaya meesha joogo waxaan rabnaa inaad ka hortagtaan laakiin ha gelinina social media oo inaad ka hadashaan ko asbitaalada yaryar oo magaaladan shaqo fiican ay qabteen khaasatan asbitaalka Olympia asbitaalka way dadaaleen waxaan alla ku dhiirigelinay oo laga rabay samee hadda waxaad ka dhigteen in dadkaas ay noqdeen jaajuus moogta u jaajuusaya dowladda countiga dadka xanuunka u hayo xanuunkan horta xanuun la qarsan kara maahan haddaad qarsatid waa baaba waxaa la rabaa inaad ogaataan haddii qof uu xanuunsado borood aad ku jirto qofkan aad u aragtaan in qofka aad qarisaan arrintan aad dhahdaan haddii la ogaado fulani oo wiilkaygi ah ama gabadhaydii ah ama inaadeerkaygi ah haddaan soo sheego ceeb baana soo saameynaysa wax ceeb la dhaho cudurkan ka quseey ma laha waxaa la rabaa inaad ku dadaashaan qof walbo xanuunka uu soo gaaro inaad soo sheegtaan sifa aan ku badbaadino ummadda bulshada oo dhan idinkana kuwii la degan aan ku dadaalno habkii laydinku badbaadin lahaa inta dadaalka binaadinka uu qaban karo wixii moogtahay qadarka ilaahay ka sokay because waxaan badbaadin karno aan awood u leenahay ma lahan awoodda ilaahay iskale laakiin taxadarka dadaalka binaadinka oon iskaga dhaadhicin karno yacni inaan waxba u reebanin dhibkan baa la rabaa dhalinyarteeni iyo dadka kale oo social media isticmaalaya waxaan idinka codsanaynaa fadlan baafinta arrimaha covid-19 oo waxba ka ogeen oo information aad iska qaadaysaan oo social media dhigaysaan waxaan rabnaa tafadal arrintaas inaad ka hartaan oodan sameynin information haddaad haysataan layma lasoo gudbiyaa jirto oo dowladda ay leedahay telefon usoo dira wixii information oo kuman oo la hubo oo aysan ahayn haddii hadda naloo sheego wargaduud qof sidan baa jiro safarna meesha laga baangeeyo oo baabuur ambulance u aado wargaduud meeshana la aado la arkina waxba ka jirin waxaad moogtaa dhib weyn u geysan doontaan dadaalka ka hortagga arrinta coronavirus waxaan rabnaa information la hubo keliya inaad na soo gaarsiisaan informationkaasna ha naga soo gaarsiinina social media laymanka loogu talagalay soo waca haddii ilaahay uu nala garab galo annagana ka hortag wixii aan samayn karno 24 saacadood diyaar baan u nahay waana la qaban dadka hadda cabaareynayo moogta asbitaalada yaryar oo magaalada ku yaalaan sida Olympia nursing home oo dadaal fiican noo sameeyay oona rabno in warqad mahadcelin aan u qorno maantada waxaan rabnaa inaad ogaataan hataa inaad gacan siisaan 100% aadna ku ammaantaan dadaalkay sameeyeen oo ah ka hortagga arrintan inay qarinin oo si fiican ay usoo sheegeen alxamdulillah labada qof oo arrinta ay saameysana wixii beri dhici doona ilaaha og waxba kama dhihi karno laakiin haddadan 4 maalin hospitaalka ay joogaan xaaladoodii aad bay usoo fiicnaatay alxamdulillah ilaahay weyna waaxidkan ka rajaynaynaa inay bogsoodaan waxayna noqotay arrin aan tallaabaday qaadeen arrin aan ku badbaadina shicibka iyo dadka qaraaba leh oo isku guri ay ku nool yihiin oon ugu talagalnay badbaadada keliya ceeb ma qabto yaanan la qarinin yaana loo okeysin arrin ceeb ah magacyaha lasoo daabacayo oo passenger manifest iyo waxyaabaha dadka ay soo daabacayaan hala dhaafo dadka booliiska oo OP-ga reportka la geeyey mar walba sii daayo social media laga sii daayaan waxaan rabnaa waan ku dhiirigelin waan la hadalnay in OP-ga ogaadaan arrimaha meesha lagu qorin ay tahay arrimo sir ah oo loo baahan yahay dhaqanka ka hortagga arrintan annagana laga baahan yahay inaan report aan geeno reportka marka waxaa la rabaa mar haddaan geeno annaga mas-uul kama nihin qof kale report haddii loo geeyo ayagaa mas-uulka ah waxaan rabnaa inay mas-uuliyadoodii qaataan ay ogaadaan arrinta information sira inay tahay ayna sii daynin annagana sidaanada insha allah waan ku dadaali doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn bisha barakaysan ramadaana nagu soo aadan cibaadana bishaan ma jirto bulshada inteeda badan hadda waxay rajo ka qabaan in masaajida loo furo dadka fikirkaas qabo maxaad u sheegi lahayd oo ama ku dhiirigelin lahayd si loo soo duceeyo horta waad ku mahadsantahay su-aal aada u fiican oo igu soo xasuusisay waaye waxaana rabaa fursadda inaan qaato aan yacni aan
ugu hambaliyay ummadda muslimiinta meel walba joogaan soo dhaweynta bisha Ramadaan iyo insha Allah cibaadadana haddii Ilaahay uu noo garto in aan si fiican uga qayb qaadano arrinta haddana soo saameysay oon ka cabsi qabnay maadaama ayna soo gaartay dowladdan dhaxana amar ay bixisay amarka lagama noqonin amarkaana waan ku waari doonaa waana ka xunnahay aad iyo aad waa arrin aad u xanuun badan weligeediina soo marin bil soon ah taraawiix iyo taxajud aan la tukanaynin moogtahay microfonka masaajidada ay si fiican cirka u qabsanin waa markuu ugu horeyso inta yaroo da'da aan jiro 46 sano isoo marin dadka iga weynana aan hubay inay soo marin waxaana rabaa inaan shicibka aan ku dhaho maadaama arrinta hadda aan moogtahay aan la xakaareenay tahay arrin adduunka weli soo marin adduunkoo dhan baa xirxiran u dulqaata moogtahay arrimaha dowladda dhexe soo saartay oo meelaha yacni dadka isku imaadaya oo dhan la dhahay yaa la aadin waxaan rabaa inaad u dulqaadataan arrintan aad ka hartaan waxaan rabaa inaan dhaho soon wanaagsan salaamu calaykum mawlid jaamac faarax mawlid galwaaq warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq bartamaha bal iminkana qodobada dibadda dowladda Bostoweyne oo karantiishay xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka wadankaasi Bostoweyne ayaa muddo 14 cisho karantiishay dhammaan 57 xildhibaan kadib markii kalkaaliye ka howlgala baarlamaanka dalkaasi laga helay caabuqa coronavirus waxaa go'aanka karantiilka qasabka galiyay xildhibaanada ku dhawaaqay agaasimaha caafimaadka dalkaasi sida laga soo xigtay qoraal ay dowladda soo dhigtay barteeda Twitter-ka Bostoweyne waxaa Khamiistii la xaqiijiyay 7 qof oo ku dhacay caabuqa coronavirus waxaana kamid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala xarunta baarlamaanka ee dalkaasi waxay xilligan lahaayeen madaxweynaha iyo xildhibaanada dalkaasi kala fadhigi labaad ee xildhibaanada lahaayeen waxaana dalkaasi looga dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 6 bilood ah Bostoweyne waxay haatan xaqiijisay ilaa iyo 13 qof oo ku dhacay caabuqa coronavirus waxaa dalkaasi lagu soo rogay xayiraad soconaysa muddo 28 maalmood ah si looga hortago caabuqa coronavirus guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii oo kala socodeen telefishinka caalamiga CW TV ee xaruntiisa dhexe ee magaalada Cabudwaaq warka waxaan la socodsiinayaa anigoo nimcanashaada intaan warkan warxii ku kulmi doon waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo